runtii waxay tahay caawa habeen farxada waa habeen taariikhiya waxa ay mahadiisa inaan maanta magaalada Dhuusamareeb aan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka marxaanti ka nahay annagoo og maalmo badan oo la soo dhaafay dalkeena sidoo u ekaa khaasatan magaaladan si ahaan jirtay waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer Galmudug dhamaantood aad baan uga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sida diiranayna loo soo dhaweey waxaan sidoo kale marka ugu horeeyay jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii shirka wajigiisii labaad nagala soo qayb galay si kalsami ah oo niyad sami ah muujiyay muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognay runtii wax badan oo muddo taagna noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas waan uga mahad celinayaa xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugayay waxa laga akhriyay halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen maanta waa maalin taariikhiya muddo waxaa taagnaa dabcan inkastoo dadku aad ii wada fiirinaya laakiin waa iska kafta badna waa kaftamaynayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo carruur baa loo kala sheekeeyayo markii la wada fariistay wax badan baa runtii meesha ka baxay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyad samida leh ee loo wada dareensanaa in marxaladan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ay jiro si aragti midaysan ah doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyay dulqaad iyo odaynimo runtiina gogashan maanta la fadhiyo wanaageeda la dhihi karo isaga iska leh saan ogsoonahay dhammaanteenba halka looma kala harin waxaan iyagana jeclahay si gaar inaan u mahad celiyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aad u fara badan ay halka joogto 100 kor u dhaaftay xildhibaanada aqalka hoose keliya waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahayeen waxa aan rabnay inaan ka shaqeyno gacan ugu sii ruuxadooda ayaan bay ahaayeen xildhibaanada iyo xoogaa waxba jiray laakiin waxaan rabaa inaan wax dayno inaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno kursigu waa iska macaan yahay oo hadday rabaan inay sii joogaan oo marlabaad la soo doorto xataa waa kala shaqeynaa waxaan rajaynaynaa inay doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa marka waxaan rabaa inaan nidhaahno madaxda anoo afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa haddii ilaahayna dhibaato ma jirto xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisaa ku jirta dalkeenna horumarkiisaa ku jira is-aamin baa ku jira galmudug haddaysan doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedahay maysan yeelatee inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wadan ogol ahaato la isla ogol yahay waxaa hadda aan halka ku gaarna waa hordhac iyo tilmaan laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxaddooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo space u darsado la jaro halkayga ya
جرر واسكها الله يا إن شاء الله dadku ayaantan booran ahay xogaa waxaan rabaa inaan ka kiciyo madaxweynaha ruuxadiisa waxaan rajaynaynaa inuu kursiga noo sii joogo tartan fiican oo galo annaguna hareeraha qabanno marka insha allah dhib badan ma jiro ragga naga maqan oo xogaa cabsida ku jirtana iyagana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siino aad baa u mahadsantihiin haddii aan madaxweyne qoorqoor hadalladii uusan jeclayn aan uga dheeldheelina isagaa gogo shafisaday oo iska dulqaata raalli ha ahaado waa mahadsantihiin